sababtaa wiil baan jecelahay wiilkaasna walaal waa wiil media caanka ah oo aad adiguna taqaanid marka walaal waxaan doonayaa sidaad ii caawin kartaa isla markaba su-aasha ugu soo dhacda waxay ahayd gabadhan wiilka ay jeceshahay oo caanka ka ah baraha bulshada oo sheegayso inaan ka sal gaarno waxaan weydiiyey su-aal ah waa kuma muxuu qabtaa muxuu yahay walaal cabdicasiis horta waan ku salaamay aad baan kuu salaamay haddaan ka hadlo walaal wiilkaas wiil wuxuu ahaa wariye ah adiga qudhaada dawaa wiil aad u taqaanid dabeecadihiisii wax kasta wiilka ilaa iyo isagoo tv-ga kasoo hadla iska dhageysan jiray hadalkiisa markasta hadalkiisa iska dhageysan jiray kadibna markii dambena adigu waxaan arkay wiilkiisa u dhageysan jiray adigu waxyaabihii igu sii dhaliyay inaan wiilkaas jeclaado waxa weeye wuxuu bilaabay qisooyin inuu dadka la taliyo dabeetana waxaa isku arkayba inaan wiilkii markasta xitaa hadaladiisii aan kusoo celceshado markasta aanan sikin xitaa inaan cid kale aanan eegaynin isaga codkiisa aan kusoo celceshado qisooyinku ka hadlaya aan kusoo celceshado marka walaal inuu dareer leeyihiin kalena warmahayee wiilkaa kulanti wacan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada waa walaalkiina cabdilcasiis riyeli xubintuna waa xubintii haasaawaha toosan qeybteedii 25aad durba 25 ayaynu gaarnay oo aynu maanta aan rabo inaan ku falanqayno qodob xasaasi ah kana mid ah xubnaha igu adag ka hadalkooda iguna dhibka badan markaa saas leeyahay qistaan la socdaa weliba waxaan rabaa intaan u gudbin marka hore channelka subscribe gambalaalka furo muuqaalkana share garay haddii aad tahay saaxiibkii hore ila jiray la joogay qalbigaad igaga taallaa si niyadaan ku jeclahay halkaan ugu kala faa'iidaysanaa saaxiibayaal warbixintan dadka qaar ma dayn lahayn way gudbi lahaayeen laakiin aniga waxaan rabaa inaan ka dhabeeyo hal qaacido amba hal arrin oo hore idin dhahay wuxuu ahaa barnaamijka haasaawaha toosan aniga ma lihi adigana ma lihid oo adeerkaa male eedaday male habareertaa male abtigay male cid walba oo talo rabta cid walba oo rabta inay sheeko niyadeeda ku jirta sheegto ay ku caafimaado ayaa iskale idinkuna kaabayaal ayaa tihiin laakiin ogaada qisada intaan gudaha u gelin waa ka afeefanaya qisadan maanta tala bixinteeda idinka iskale sidaa daraaddeed maadaama talada idinka aad leedihiin war dhuuxa oo si fiican u dhageysta inta aan u gelin waxaa whatsappka igala soo xiriirtay gabar Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Hargeysa reer Hargeysa waa salaam waan jeclahay dadkeygii gabadhan waxaana dhex maray qoraalkaas kooban aad u jeedaan assalaamu calaykum walaal cabdicasiis miya haa baan ku yidhi cod ay soo duubtay codkaas ay soo duubtay ayay sheekadu ka bilaabanaysaa waxay ii sheegtay gabadhan inay wiil jeceshahay wiilku uu yahay wariye sidoo kale uu yahay youtuber baraha bulshada caan uu ka yahay ayna jeceshahay way jeceshahay gabadhan wiilkaas wax badan oo xiriir lama samayn ma wada sheekaysan kaliya way ka heshay laakiin ayadu waxay sheegaysaa inay jeceshahay ana waxaan aaminsanahay jacaylka iyo helitaanka laba inay kala yihiin qofka marka hore laga heli karo la caanshaqi karo kadib jacayl iyo kalgacayl ay dambeeyaan sida horay murtiyaankii Soomaaliyeed ay noogu sheegeen oo yiraahdeen kalgacaylku waa qani caashaqa ka qaran weyn qurux iyo wanaag badan waana shay ku qaaliya qiimeynta aadmiga labadii qof ee mar isla qaadana qalbigooda kama go sababtoo ah kalgacaylkaaba qani ah ayaa lagu leeyahay caashaqu ka qaran weyn yahay ya sida daraaddeed war badani waxba ma keenee
sheekada bilowgeeda aan gudaha u galno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله نبدأ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhow ولا شيء. أساس وانكو سلامي والله waxa weeye inaan hargeysa kaala soo hadlaysa magacayga waxaa la dhahaa Saamiya Cabdi Axmed. walaalo waxaan doonayaa inaad ila talisid sababtoo wiil baan jecelahay. wiilkaasna walaal waa wiil media caanka ah oo aad adiguna taqaanid. marka walaal waxaan doonayaa saad ii caawin kartaa. wiilkaasaan doonaya inaad iga caawisid, ma iga caawin kartaa? waayo waxaan arkay in badan adigoo dad la talinaya, waxaan leeyahay dad caawinaya. marka anna inaad i caawisaan doonaya, waan ku xidhanay youtube-kaaga. marka walaal anna inaad i caawisaan raba insha allah. waayahay intaas mar gabadhaan ii soo dirtay waxaad dareemaysaa sheekadu qabyo waa. ani waxaan jeclahay dulucda sheekada inaan ogaado. waxaan ku yidhi walaal macaan waa mahadsan tahay, waan ku faraxsanahay xiriirkaaga, soo dhawow. waxaad ii sheegtaa wiilka aad jeceshahay ma laga yaabaa inaad la wadaagto oo aad noo sheegto muddada aad jeclaatay, sida aad jeclaatay, xiriirkeeda dhex maray, xilliga uu bilowday, waxa idin dhex maray kulley. sababta waxaan rabaa markaan tala bixinayo wax badan inaan ogaado, meelo badan inaan ka fiiriyo, idinkana xog badan aan idiin soo gudbiyo. codkan kale ayaa ii soo duubtay. walaal Cabdi Axmed waan ku salaamay, aad baan ku salaamay. haddaan ka hadlo walaal wiilkaas wiil wuxuu ahaa wariye ah. adiga qudhaada waa wiil aad u taqaanid dabeecadihiisa iyo wax kasta. wiilka ilaa iyo isagoo tv-ga kasoo hadla iska dhageysan jiray hadalkiisa, markasta hadalkiisa iska dhageysan jiray. kadibna markii dambena adigu waxaan arkay wiilkiisa u dhageysan jiray. adigu waxyaabihii igu sii dhaliyay inaan wiilkaas jeclaado waxa weeye wuxuu bilaabay qisooyin mayna dadka la taliyo. dabeetana waxaa isku arkayba inaan wiilkii markasta xitaa hadaladiisii aan kusoo celceshado, markasta aanan sikin xitaa inaan cid kale aanan eegaynin, isaga codkiisa aan kusoo celceshado, qisooyinku ka hadlaya aan kusoo celceshado. marka walaal in dareer leeyihiin kalena warmahayee wiilka Cabdi Riyali baa la dhahaa, waana adiga. marka bal badan adigoo leh baan maqlay waa inay qofku uu sheegto jacaylka. haddaadan kuu sheeganaya maxaad leedahay? mana waxay leedahay taladaadii ayaan qaatay, qofku jecel yahay u sheegtee adaan ku jeclahay maxaa ay leedahay. مسكين قال جعل هذا محل عشان من وجعلان جرمية. أوكي صاحب يال أنا هروح عند هو شيء قبل أن حريرك النحمري أم بقران النحمر أنتوا يا وعرفتين أنت سؤال بروبلم الآن نختار كمركو حنون صدوال الدواء مقشين سد داو اللغرة داو مسكو غرب aniga marka aniga ay taagan tahay ma habboon tahay in aan aniga tala bixiyo qof ilaahay ayadaan ku jeclahay tala ka bixiyo mise aniga ila taala gabadhan saa ula xiriiraya iyo waxaan isdhahayn ana ii taalaay ya soo ma ahan in idinka aad talooyin hoos ku soo qortaan oo gabadhan aad tala siisaan. barnaamijka Hasaawaha Toosan qaybtiisii 25aad waxa uu meereysto man shaxta iimayl ka fiixta miskiin wasarno uu meereysto maskiinka soo galay. hada jeclaa kara bashar ilaahay waaye, bini aadan waaye, wiil dhalinyaro waaye, gabadha jeclaatay wax weyn ma ahan. inkastoo su-aasha shakiga ku jira uu yahay ma ka heshay mise waa jeclaatay. أنا believe in إيجاش وامزنا ويجري كرتها بنادنا أم بقفة كيلي كرا لكن شعير وشيء كروا سوساس معين مركز تناضى جودان حواش إذا يوحنا يوسابسن
asbreefda ula wadaagi doonaa marraba banaanka na soo dhigo maadaama aysan tala aniga baahnayno aniga ayba tabasho iga tahay oo ay aniga micnaha wax ii soo bandhiganayso marka idinkana waxaa idinka codsanayaa bal talana siiya maanta talada anaa ku jiriya tala keena weliga isma arkin isma maqlin isma naqaano laba magaalaa kala joognaa Hargeysa magaalaan jeclay joogtaa waa dadkaygii ehelkayga saxaabtaydii anna Muqdishoan joogaa saaxiibayaalow marka anigu ogtiin qofka markay talada ka dhanaan tahay waa dhag waa kala furaa laakiin markii lagu yiraahdo adiga xogaa xishooda galaan xishooda galee bahasha kala fura kala daadiya kala dhilqiya hoosna ku soo qora xubintan 25aad ee barnaamijka Hasaawaha Toosan saaxiibaya inta ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo hore waxaan idinku sheegay qaybta ugu koreysa commentiga qofka ugu koreeya ee comments fiican soo qora salaamu calaykum wacalaykum salaam waa ka qaada problem leh laakiin qofka oraahda ugu horeysa soo qora ayaa pin saari doona hana ku soo daro aniga ayaa qoraalka ugu horeeya ku soo qoray talada ugu horeysa ayaa pin gareyn doona xitaa hadii tala xun noqoto hadii tala fiican noqoto hadii mid fantastic noqoto hadii mid cajiib noqoto war waa walaalkiin Cabdulcasiis Riile intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh wa idin jeclahay